Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa tuma gabadhii ugu horeysay ee aas-aasta ama dhista jaamacaddii ugu horeysay caalamka. Soo dhawaada muuqaalkeena maanta iyo Pioneer Channel. magaceedoo dhammaystiran waa Fatima bintu Muhammad al-Fihri al-Qurayshiyya. waxay ku dhalatay Tunisia taariikhda markay ahayd 800 miilaadiga una dhiganta 183 hijrida. waxay ahayd gabar aad u yar markii ay reerkeedu ay u soo guureen magaalada Qayrawaan ee dalkaasi Morocco, iyadoo muddo la nooleed dadka reer Qayrawaan. xilligaasna waxay ahayd markii xukunka hayay Idriiskii labaad. Fatima waxay ka soo jeedaa duriyadii ama awlaadii Cuqba binu Naafi al-Fihri oo reer Qurayshi loo nisbeeyo, waana ninkii furtay Tunisia iyo aas-aasihii magaalada Qayrawaan. Fatima waa ay guursatay, iyada iyo ninkeeda waxay noqdeen dad tujaar ah ama maalqabeen ah. muddo dheer kama soo wareegan markii aabbaheed iyo ninkeedii ay geeriyoodeen. aabbaheeda wuxuu dhalay Fatima iyo gabadh kale, waa uuna tarbiyeeyey. Fatima waxay aabbaheeda ka dhaxashay hanti aad u badan, waxayna hantidaasi ugu deeqday dadka muslimiinta oo xilligaas masjidka uu cariiri ku ahaa. waxayna masjidka u iibisay dhul baaxad weyn, isla markaasna u dhistay. xilligii dhismaha waxaa lagu guda jiray bil Ramadaan sanadkii 245 hijrida. Fatima waxaa lagu naanaysay Ummulbiniin, waxaana sidaa loo yidhi sadaqadii badneed ee ay bixin jirtay. Fatima sidoo kale waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee aas-aasta ama dhista jaamacaddii ugu horeysay ee taariikhda bini'aadamka ku xusan. dhismaha jaamacadda ay dhistay waxaa maanta loo yaqaanaa masjidka iyo jaamacadda Qurawiyiinta. jaamacadda waxay ku taallaa magaalada Fas ee dalkaasi Morocco. jaamacadda waxaa ilaa ay maanta wax ka bartay dad ka kala yimid daafaha caalamka. jaamacadda al-Qirawiyiin waxaa maanta ka horeysa jaamacadaha caanka ah ee Cambridge iyo Oxford muddo dhan 300 oo sano. jaamacadda ay dhistay Fatima al-Fihri, dadka ugu caansan ee ka qalanjibiyey waxaa ka mid ah Jonas Leo Africanus oo ahaa siyaasi caan ahaa oo xilligaasi noolaa. buugagtii uu qoray waxaa ka mid ahaa buugga The Description of Africa. sidoo kale waxaa jaamacadda ka aflaxay Maxamed al-Idriis al-Qurdabi oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee naqshadeeya ama sameeya maabka adduunka. ugu dambayn, jaamacadda waxaa wax lagu baran jiray qarniyo badan ka hor. waxaa dhex yaalla buugaag qadiim ah. waxaa halkaas ka soo burqaday cilmi maanta dunida islaamka iyo kan reer galbeedka wax weyn u tara. haddaba waxaa halkan inooga cad haweenku qiimaha ay u leeyihiin bulshaweynta. waxaa sidoo kale jira oraah odhanaysa, ogow gabar wax baratay waa bulsho wax baratay. allah u naxariistee Fatima al-Fihri waxay ugu dambayntii geeriyootay sanadkii 880 miilaadiga, waxayna ku geeriyootay magaalada Fas ee dalkaasi Morocco.